السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة كسول وهذا برنامج كيني وحويدين وقال كشيقنا madaxweynaha dalku yaala galbeedka fog ee qaaradda Afrika ayaa la isku cuna duubay kadib markii ay iska luleen camaariyay ka mid ah ciidamada qalabka sida ee dalkaasi. madaxweynahani waxaa ku habsaday camaariyay ka calaysan gaadiidka dagaalka iyo kuwa hubka, waxayna meesha ka saareen nimankan soo kalahay ama ku soo kaahintay Bayluulida looga taliyo dalkaasi iyagoo geed quraanjo leh ka laalaadiyay duqii reerka u weynaa ama waabta dabaabi jiray. madaxweyne Alpha Conde ayaa la jeebiyay sidoo kalena la labadibleeyay iyada oo lagu riday booraan dawaco ku taala dalka Guinea Conakry oo uu muddo ku siman 11 gu ka tarbaryeynayay talada dalkaasi. waxay u cuskadeen ciidamadani Alpha Conde inuu iyagana midida qulwalaha ka rogi waayay waa ciidamada dadka dalkaasina u sameyn waayay waxay nafta ku maradhaamiyaan. Alpha Conde ayaa gugii 2010 qabtay xilka iyo talada dalka Guinea Conakry, balse waxaa dhalada loo saaray inuu dadka u abuuri waayay farataagtaag isla jeerkaasna wax ka qaban waayay macaluul iyo gaajo shaqo la'aanta sababtay oo dalkaasi daashaday. sidoo kale gugii 2011 ayuu dirqi iyo tubas iyo weliba faracididood kaga muruxsaday Alpha Conde gaban wardhiga lagaga sii dayn lahaa oo ay maleegeen qaar ka mid ah ilaaladiisu. saaka hiirtii waa beri ayaa lagu jarmaada guday cabuudha madaxtooyada ee uu uga talin jiray dalkaasi iyada oo la sheegayo in rasaas nool la isweydaarsaday. ila waraadyo aan la hubin kasiinadooda dhabta ah ayaa bitiyay in cutub ka mid ah ciidamada xoogga ee dalkaasi oo uu hogaaminayay ninka lagu magacaabo Mamadi Dambuya kana mid ahaa col iyo cadaawo Faransiisku tababaray uu ka kow yahay afgambiga Alpha Conde. askari wejigiisa qariyay oo soo huwaday calanka dalka Guinea isla markaana garbihiisa ay tubnaayeen 8 askari oo kale ayaa quraarada dawladdu leedahay xayiigteeda ka sheegay inay qorsheynayaan inay dhisaan dawlad ku meel gaara. waxaanu xidhnay buu yidhi dhammaanba qaydadka iyo xuduudaha cirka iyo dhulka, waxaanu naafka ciidda u darnay xukuumadda dalka kadib markii aanu beerka dhulka u jiifinay madaxweyne Alpha Conde ayuu yidhi askarigan ku jeenay qaarnaa qoriga daba jaariyaha ah oo meelisa soo galubay. dhinaca kale golaha wasiirada xukuumadda Alpha Conde oo la hadlay duulka wararka raxaanshuba waxay u sheegeen inay iska caabiyeen dablaydii soo weerartay xilli la arkayay muuqaalo ordaya baraha dadku ku xidhiidhaan oo sheegaya Alpha Conde oo la silcinayo. ugu dambeyn dalka Guinea Conakry ayaa ka mid ah meel uu markii la doortay socod witigiisa ugu qarboosiyay gugii 2019 madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi, taasi oo soo waldaamisay xilligaasi in xukuumadda madaxweyne Farmaajo ay xiriirka diblomaasi u geyso madaxweyne Alpha Conde. ugu dambeyn daawada dalkan ayaa ka mid ah dalalka ku yaala galbeedka fog ee qaaradda Afrika, wuxuuna ka mid yahay meelaha Ilaahay wax dhigay, balse qolyaha saan cadaalaha ay Ilaahay ka go'ay dadka ugu bahalageliyaan iyagoo ku sheega meel gaajo iyo macaluul loogu badurmay. inkastoo aanu weli qaaradda Afrika ka dhamaan afgambigu, haddana way ka sii xaq jirtaa Guinea Conakry iyadoo meesha ay birinsadeen dagaalada qulqulatooyinka isafgaran waaga nacfijiidka iyo weliba rabashku. waxaa gugii 1983 dabayaaqadiisii ciidamo gaashaamani dhegta dhiigga u dareen madaxweynihii dalkaasi Sakaturi Ahmed Sakaturi, ku-xigeenkiisii iyo weliba taliyihii ciidamada ilaalada madaxtooyada tiyo ay halkaasi ku leedeen dad gaadhaya 100 qof ugu yaraan kuwaasoo la isula geliyay. waxaa afgambiga ka soo horjeestay ururada midowga Afrika, midowga Yurub, ururada dalalka barwaaqa sooranka iyo jamciyadda guud ee qaramada midoobay kadib markii idaacadaha magaalada Conakry laga maqlay hadallo ay jeediyeen fallaagada afgambiga. haddii aynu isu daleeno sidan iyo weliba dalal ku yaala bariga dhexe, wasaaradda gaashaandhigga uga wakiilka ah reerka Sacuudi la yidhi ayaa war tabaqdhoon ah soo saartay hanta gadaankeeda, kaasi oo ay siisay wakaaladaha wararka qolaaliya iyadoo ka dhawaajisay inay samada ka qabatay gantaal rabadh ah ama dacas ah iyo dhowr fiidmeelood oo aanay cidina wadin oo duulka xuutiyiinta la yidhi u soo ganeen xaggooda. Sacuudigu wuxuu sheegay inay rabadhkaasi u dhaawacay 2 cunug kadib markii uu firir sameeyey. afayeen u hadlay nimanka xuutiyiinta oo isa soo yuubay dhilaalo ayaa biniixiyey inay sidan iyo ceelasha baasiinka ee deegaanka Ras Tanura ay u dhigeen hal madfac iyo 8 balanbaalisood oo ay la rabeen inay dugaariyaan shirkadda shidaalka ugu weyn Sacuudiga ee magaceeda la dhaho Aramco kuna taala magaalada Damaam. xuutiyiinta oo ka ceel haya Sacuudiga dhadhanna ku haya weeraro ay ku qaadaan ayaa sheegay
inay wax dhigeen bogcado shirkadda Aramco ku leedahay gobolada Jeesaan iyo Najraan sida uu qolyaha wararka Sufriya u bitiyay Yaxya Saara oo ku hadlayay dibnaha Xuutiyiinta. shirkadda baasiinka Sacuudigu kamay dibijaaqin weerarka loo geystay bilqalaxdooda balse ilo docogaysi waxay sheegeen inaanay waxba soo gaarin oo gantaaladu ku habsadeen cidla ciirsila. 14 guri ayaa dumay sidoo kalena gamuunkan ayaa dhaawacay 2 ciyaal ah oo meel kubad ku ciyaarayay. hadda waa siday sheegtay wasaaradda gaashaandhigga Sacuudigu. si kastaba ha ahaatee gobolka bari oo hoy u ah xarumo baasiin oo muhiim ah ayaa waxaa horay loola beegsaday weeraro isdaba jooga waxaana ku jiray mid Sebtembar 2019 lagu qaaday 2 xarumood oo ay leedahay shirkadda Saudi Aramco kaasi oo kala badhagiyay wax soo saarka. iyaduna dowladda Israa'iil ayaa ku wargelisay dhigooda Mareykanka inaanay wax dan ahi ugu jirin Yuhuudda eedaha iyo dhaleecaynta ay Washington la daba hoombinayso dalalka Masar iyo Sacuudiga kuwaasoo salka ku haya qaabka loola dhaqmo xuquuqda dadka haweenka iyo duulka ku labadiblaysan jeelasha iyo booraan dawcooyinka dowladahani. wuxuu sheegay wargeyska xilliga Israa'iil afka qalaadna lagu dhaho Times of Israel in Yuhuuddu labadan dal ay ka dugsato col iyo nacab cawsanaya bariga dhexe kuwaasoo kala ah Iiraan, Shiinaha iyo Ruushka. Yuhuuddu waxay fartay xukuumadda Joe Biden inay dhacdooyinka qalafsan ee dadkooda ay ugu geysanayaan magaalooyinka Riyaad iyo Qaahira loogaga jawaabo indhala'aan, dhagala'aan iyo weliba aamusnaan. waxay intaa ku dartay duulka Yuhuudda la yidhi haddiiba Maraykanku taa fali waayo waxaa iman doonta inay geyeysiiso ama ay ka liibto inay dalalkaasi isu dhigaan una farabaxsadaan kuwa innaga cadowgeenna ah ee aynu isbaal guranayno ama isjoognoba. war ka soo yeedhay gafoor culusta AMISOM gaar ahaan qaybta saddexaad ee taliskaasi kana socda dalka Itoobiya ayaa lagu bitiyay inay dhowaan xamaamtooda ka guran doonaan ciidamada Itoobiya ee ku sugan magaalada Buurdhuubo ee gobolka Gedo iyo degmada Qasax Dheer ee gobolka Baay ee koonfurta Soomaaliya. maamulka Jubbaland iyo maamulka Koonfur Galbeed ayaa lagu wargeliyay inay u diyaar garoobaan fiidkaca ciidamada Itoobiya ee nabad ilaalinta u joogay Soomaaliya kuwaasi oo xoojin doona ciidamada dagaalka kula jira Tigray. bidoodka AMISOM ayaa ka dalbaday ciidamada Soomaaliya inay la wareegaan saldhigyada ay ka fiidkaci doonaan dhigooda Itoobiya ka hor intaan la gaarin 21 bisha Sebtembar maadaama ay gubanayaan deegaamada waqooyiga Itoobiya ee la isku hidiidayo hubka kala jaadka. bogcadahan saldhigyada lagu sheegay ee ay ka hadaafi doonaan ciidamada Itoobiya ayaan loo hayn colkii kala wareegi lahaa iyada oo laga cabsi qababa inay al-shabaab u daba martayso. war isaguna si dalagan ku soo galay karshida warqabadka ee TRTV ayaa daboolka ka qaaday in ciidamadan Itoobiya qaarkood afka loo saari doono degmada Garbaharey oo la sheegay in laga maqbuurinayo wax lagu sheegay doorashada golaha dadka Soomaaliya. gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya ayaa isaguna heshiis oo midba dhankiisa qarqarsiiyay dhexdhigay gudoomiye Cabdi Xaashi Cabdilaahi iyo ku-xigeenka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed oo in dhawaalaba isu marinaya dhalooyinka warka duuba hadallo nactar leh sidoo kalena dhexdooda deeradu ka hiflahayd. Baasha Yuusuf Axmed ayaa midka kale maqaarka u mariyay waxay dani ka wadi weyday taasoo ay labada dhanba yeeleen heshiis caalwa iyo u muuqday cagajiid oo magaciisa la yidhi maxaa dana. garabka Mahdi Maxamed Guuleed ayaa lagu yuubay gudoomiyaha guddida doorashada gobolada waqooyi halka dhinaca Cabdi Xaashina loogu culuq celiyay ku-xigeenka iyo madaxa amniga wax lagu sheegay. waxay nimanka reer waqooyi isla galteen inuu sidaa ku soo dhamaado ama ku faydmo inay dhexdooda ka baxdo cawshi miranaysay muddada dhammayd 2 ka geelo gowa. dhinaca kale waxay ku heshiiyeen wax lagu sheegay 4 qodob oo kala ahaa in la dadargeliyo doorashada gobolada waqooyi, in ciidamada iyo iskooxaysiga dib loo kala qaado, in la joojo weeraradii dhanka afka iyo dibnaha ahaa ee la isu marinayay quraaradaha la iska arko, iyo inay noqdaan uliya diirkeed iminka wixii ka dambeeya. ugu dambeyntii daawada Somaliland waxay u diyaar garoobaysaa ka qaybgalka dagaalka loogu jiro dekedaha. Djibouti 100% kuma faraxsana maalgashiga DP World ku samaysay dekeda waxaa sidan ciwaan looga dhigay maqaal lagu qoray wargeyska dhaqaalaha dunida oo afka qalaad lagu yiraahdo Financial Times oo kamid ah wargeysyada ugu caansan dunida kana faalowda ganacsiga iyo dhaqaalaha taariikhdu markii ahayd 2 bishii Sebtembar 2022. markab sita calanka dalka Itoobiya oo ku soo xidhay dekeda Berbera ayaa rogay shixnado isugu jira in bariida iyo sonkor uu ka keenay dalka Hindiya taasoo tilmaan u ah baa la yiri in jamhuuriyadda Somaliland gashay marxalad cusub oo ganacsiga caalamiga. waxaa mahadda iska leh baa la yiri maalgashiga 442 milyan ee shirkadda Dubayda dunidu ku samaysay marsada haabada magaalo xeebeedda Berbera.
dekadda berbera ayaa soo ceshanaysa ganacsigii qadiimka ahaa ee ay qarniyo badan la lahayd carreedeg waxayna bilaabaysaa baa la yidhi inay dagaal u gasho marinbiyeedka 3 meelood meel doonyuha dunidu maraan. dekadda berbera oo dhowaan la cusboonaysiiyey ayaa u muuqata inay noqonayso mid beddesha dekadda Jabuuti oo noqon doonta albaabka laga galo marinada ganacsiga kanaalka Suez. berbera mar waxay ahayd magaalo madaxdii maxmiyadii Ingiriiska ee Somaliland magaaladii uu ka soo degay. berbera ka hor intii aanay ku burburin dagaaladii 30 sano ka hor ka dhacay Soomaaliya qarniyo badan waxa ay xarun u ahayd ganacsiyadii badaha ee u dhaxeeyay geeska qaaradda Afrika, jasiiradda Carabta iyo waliba dalweynaha Hindiya. muhiimadda halka ay ku taal awgeeda gacanka cadmeed. hadda waxaanu haysanaa fursad kale oo aanu ku noqono xarun ganacsi oo caalami ah. sidaasi waxaa yidhi oo ku diminjaaqay duqa berbera Cabdishakuur Maxamed Xasan Cidin. dibadda xafiiskiisa tirooyin geel ah iyo kadino ari ah ayaa lagu sii wadaa dekadda oo loo dhoofinaya dekadda Jidda ee Sacuudiga. waxaa jiri doonta baa la yidhi tartan toolmoon oo u dhexeeya dekadaha jaarka sida Jabuuti. sidaasi ayuu ku daray hadalkiisa duqo. marsada haabada berbera oo xadhigga laga jaray bishii Juun waxa ay qaabili kartaa maraakiibta ugu waaweyn carreedeg. shixnadaha ay qaadi karto waxaa laga soo kordhiyay 150 tan cabirka shixnadaha sanadkii iyada oo la gaarsiiyay 500 oo kun oo tan. waxaa sidoo kale laga shaqaynayaa baa la yidhi in la gaarsiiyo sanadkii 2 milyan. ujeeddada ugu weyn ee dekaddu waa inay u adeegto Itoobiya oo dalka labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika. Itoobiya ayaa ah waddan u baahan meelo badan oo laga soo galo sida uu sheegay Subhaj Watarane maareeyaha guud ee shirkadda DB. marka la eego waxqabadka warshadaha waxraqda ee adduunka sanadkan 2022 banka carreedeg iyo waliba shirkadda His Market waxa ay dekadda Jabuuti ku qiimeeyeen dekadda ugu shaqada wanaagsan Afrika iyadoo lagu qiimeeyay inta daqiiqo ee shixnad kasta lagu qaaday. hase yeeshee tartanka ayaa xoogaystay kadib markii ay shirkadda Dubayda dunidu ay timi Somaliland oo ay tartan fool ah la gashay Jabuuti. Sultan Ahmed bin Saleyman maareeyaha guud ee shirkadda Dubayda dunida ayaa u sheegay in berbera ay noqon doonto mid aad ugu habboon ganacsiga gobolka ka socda gaar ahaan shixnadaha u socda dalka Itoobiya. sidoo kale mashruuca jidka isku xidhaya berbera iyo magaalo xuduudeedda Wajaale ayaa la rajaynayaa inuu dhammaado isaguna guga 2022. welina waxa ay Somaliland u baahan tahay inay horumariso kaabayaasha dhaqaale oo aanay helayn dhinacyo badan oo u maalgelisa sababtoo ah waa dal aan weli la aqoonsanayn si ka duwan Jabuuti oo maalgelin badan ka hesha Shiinaha. Somaliland waxa ay la leedahay Jamhuuriyadda Taiwan. si kastaba ha ahaatee wax badan ayaa ku xiran xaaladda siyaasadeed ee dalka Itoobiya. dadweynaha gobolka ku yaala ayaa ah macmiilka ugu muhiimsan ee dekeduhu ku loolamayaan. tobanaanka sano ee la soo dhaafay Itoobiya mucjiso kororka dhaqaale oo la mid ah habkii wadamada Aasiya ayaa ay ku talaabsatay iyada oo dhaqaalaheedu korayay celcelis ahaan 9.4% sanad kasta. hase yeeshee faafitaanka xanuunka 20 midla iyo dagaalka sokeeye ka bilaabmay dalka Itoobiya ayaa carqaladeeyay kororkaasi. intaa waranay waxaanu ku darnay ma ogin wax weydiin ogaal ka sheegne waa Maxamed Aadan Dir tan iyo kulanti dambe nabadgelyo iyo nooli kulante.